370 ruux halmar diinta islaamka wada qaatay dalka Filibiin ee qaaradda Aasiya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Si aan u gudagalno muuqaalkan iyo qisada ka dambaysa in dadkan oo horay diinta islaamka u haysan ay halmar wada islaamaan, walaal like saar siina share garee muuqaalkan si saaxiibo badan u gaaro, nasoo follow garee. Mahadsanid. Culimada diinta islaamka faafiya ee dalka Filibiin ayaa kulan wacdi ahaa oo ay ku qabteen magaalo ka mid ah dalkaasi ayaa dadkii ka soo qayb galay kulankaasi oo dhami amaba halkaasi tagay waxa ay ku qanceen in ay qaataan diinta islaamka kadib dood dheer, su'aalo weydiin iyo jawaab celin kadib culimada. Inkastoo dadkan muslimka ah ee u dhashay dalka Filibiin ay haatan wadaan barashada diinta islaamka iyo sidii ay uga mid noqon lahaayeen dadka islaamka ah ee caalamka, maadaama aysan horay u haysan diinta islaamka, ayaa haddana waxaa aada loogu soo dhoweeyey qaadashadooda diinteena suuban ee islaamka ah. Waxa ay sheegeen in ay aada ugu faraxsan yihiin qaadashadooda diinta islaamka, isla markaana ay diinta islaamku tahay diin farxadeed ayna leedahay dastuur aan qaldamin. Dad badan ayaana soo dhoweeyey dadkan halmar diinta islaamka wada qaatay ee u dhashay dalka Filibiin ee qaaradda Aasiya, maadaama aysan horay diinta islaamka u haysan isla markaana ay xaqa fahmeen. Waxaana muddooyinkii dambe baraha bulshada ee Filibiin iyo qaaradda Aasiyaba qabsaday muuqaalkooda iyadoo ashaatiinka loo qabanayo, isla markaana ay wacdinayaan culimo dalkaasi u dhashay oo ahaa kuwii ka shaqeeyey in dadkani ay diinta islaamka qaataan, isla markaana ku dhiirigeliyaan in ay ku soo dhowaadaan in ay islaamaan kadib su'aalo badan oo dadkaasi ay weydiiyeen culimadii ashaatiinka u qabanaysay, balse dhammaantood ay ku wada qanceen si wadajir ahna ay u qaateen diinteena suuban ee islaamka.